Heerarka mudnaanta la siiyey ayaa ah waxa uu ardaygaagu u baahan yahay inuu ogaado dhammaadka sanad dugsiyeedka. Waxaan ku hubin karnaa tani inagoo fiirinayna haddii ay horumar ku socdaan, qayb ahaan fahmayn, ama aqoon u leeyihiin. Dugsiyada qaar waxay ugu yeeraan qaabkan qiimaynta waxbarashada. Fasalka koowaad waxaa lagaa codsan doonaa inaad muujiso aqoonta tirada adoo isku aadinaya tirooyinka, akhrinaya, qoraya, isbarbardhigaya oo matalaya tirooyinka. Garan kartaa farqiga u dhaxeeya kooxaha waxyaalaha ka badan, ka yar, isku mid ah. Taqaanaa sida loo muujiyo tirooyinka iyo la tirinayo ama wax la isu aruurinayo. Tan macnaheedu waa inaad kala dhigto nambarada si taxane ah, garan karto nambarada markaad akhrinayso, qori kartaa nambaro haddii lagu weydiiyo. Fasalka koowaad waxaa lagaa codsan doonaa inaad muujiso oo aad sharaxdo xeeladaha lagu xalliyo dhibaatooyinka dunida dhabta ah iyo isu dheelitirka xisaabta. Muuji sida hal koox loogu qaybiyo laba kooxood. Tusaale ahaan, xilliga fasaxa haddii 12 saaxiibo ay doonayaan inay ciyaaraan, fasalka koowaad ayaa isku qaybin kara labada koox oo 6 ah. Si mar kale loo hubiyo shaqadooda, fasalka koowaad wuxuu sharixi karaa in 6 lagu daray 6 ay la mid tahay 12. Tan macnaheedu waxa waaye waad sharxi kartaa sida aad ku og tahay inta waxyaalood ee koox ka kooban tahay, oo aad tusi karto sida koox looga daro ku darista ama koox looga qaado ka jarista. Siyaabaha lagu tuso inaad taqaanid sida loo sameeyo tan waa: sharax sida haddii aad 2 xaleef oo pizza ah uga qaadatid sanduuq ka kooban 8 xaleef, imisa xaleef ayaa haray. Fasalka koowaad waxaa soo bandhigi doontaa fahamka lacagta. Waxaa kale oo aad u sheegi kartaa qof inta senti uu nickel, dime, quarter, nus dollar iyo $1 mid walba ka kooban yahay. Tan macnaheedu waa inaad og tahay waxa ay yihiin noocyada lacageed ee kala duwan iyo inta ay u qalmaan. Waxaad ku tusi kartaa inaad tan og tahay adigoo qof u sheegaya inta nickel, dime, quarter, rubac, nus dollar ama dollar qiimahooda yihiin. Fasalka koowaad waxaad muujinaysaa fahamka waqtiga. Waxaa ku tusi kartaa inaad taqaanid tan adoo qof u sheegaya waqtiga ay tahay saacadda analoga wareegta iyo saacadda digitalka qoraalka ah. Taas macnaheedu waxa waaye akhriyi kartaa waqtiga saacadda ay sheegayso. Fasalka koowaad waxaad muujinaysaa dareenka tirada. Tani waxay ka dhigan tahay inaad taqaano sida ay nambaradu u shaqeeyaan, waxaadna tusi kartaa sida ay u shaqeeyaan. Tusaale ahaan, waxaan isticmaali karaa nambarada sida ay isugu xigaan kor iyo hoos si aan u xisaabayo. Nambarada qaarkood way yar yihiin waxayna isticmaalaan tiro mid ka mid ah. Nambarada kale way ka weyn yihiin waxayna isticmaalaan tobnaadka meel ama boqolaal meel.